Assalaamu calaykum. Ku soo dhowaada halkudhigi laga faa'iidayo casharo muhiim ah iyo waayo aragnimo. Duruufaha adduun ee maalinlaha ah iyo waayo aragnimada qofku kororsanaya waa casharo muhiim u ah nolosha qofka iyo dadka kale ee uu sii tabinayaba. Qormadan waxa aynu ku milicsan doonaa halkudhigyo dad caan ahi ay ka tageen oo waana ka noqon karta waayaha adduun. Sharafta noloshu ma aha in aanad weligaa kufin, balse waa inaad kici karto mar kasta oo aad kufto. Halka wax laga bilaabo waa in marka hore hadalka la joojiyo, hawshana la gudagalo. Wakhtiga aad haysataa waa uu kooban yahay, ee ha iska lumin inaad qof kale noloshiisa noolayso. Iska jir in aad ku noolaato natiijada fikir ka soo maaxday dad kale maskaxdood. Haddii nolosha waxa aad haysato aad eegto, mar kasta dheeraad ayaad haysan doontaa. Haddiise aad eegto waxa kaa maqan, weligaa kuma qanci doontid in aad wax kugu filan haysatid. Ha ku go'aan qaadan midhaha aad maalin kasta guranayso, ee ku go'aan qaado siidhka aad beertay. Nolosha jab badan ayaad kala kulmaysaa, laakiin iska jir in naftaadu ay jabto. Ugu dambaynta, waxaa xisaabta geli doontaa ma aha sannadada aad noolayd, balse waa nolosha aad sannadahaagii noolayd. Noloshu ama waa ku dhac ama waa waxba yahay. Guuldarrooyinka ugu badan ee nolosha waxaa gala dad garan waayay dhowaanshiyaha guusha markii ay isdhiibeen. Dadka guulaystay waa dadka ku dhaca in ay qabtaan hawl kuwa guuldarraystaa aanay doonayn in ay qabtaan. Jidka guusha iyo jidka guuldarrada intaba waa isku jid keliya. Ninka guulaystaa waa ninka sees adag ka dhigta dhagxaanta ay dadka kale ku soo tuuraan. Ha isku hawlin in aad noqoto shakhsiga guusha iska leh, ee ku dadaal inaad noqoto qofka qiyamka leh. Qof kastaa waxa uu noqdaa waxa uu aaminsan yahay. Caqabadda ugu weyni waa in aad gaadho go'aanka aad hawl ku qabanayso. Wixii ka soo hadhaa waa madax adayg uun. Nolol aanad tijaabo marinini ma aha nolol u qalanta in aad noolaato. Fikirkaaga weynee, guuldarradana ku dhac u yeelo. Waa dhab in guuldarradu kuu keenayso niyad jab, laakiin inaad isku dayi weydaana waxa ay kuu keenaysaa halaag. Nolosheennu waxa ay ka samaysantaa 10% waxa inagu dhaca iyo 90% sida aynu waxaas uga dareen celino ama uga jawaab celino. In aad gaabisaa dhibaato ma laha inta aanad socodka joojin. Wax kasta oo kaa hor yimaada yaani ku niyad jabin, waayo diyaaradduba dabaysha ayaa ay ka hor tagtaa waanay ka gudubtaa. Badankeennu uma noolin riyooyinkeenna, ee waxa aynu la noolnahay cabsidayna haysa. Haddii aad hoos u eegto waxa aad nolosha ku haysato, mar kasta wax ka sii badan ayaad heli. Laakiin haddii aad eegto waxa kaa dhiman, weligeed noloshu kuguma filnaanayso. Haddii aad weli dhallinyar tahay, waxaad ogaataa 20 sanno kadib haddii wadku ku daayo in aad ka murugoon doonto waxyaabo aad samayn karaysay oo aanad samayn. Sidaa awgeed, maanta ha dayicin fursadaha aad ku shaqayn karto.